بسم الله السلام عليكم ورحمة الله ومركلة يا مقال عصب بامشكيني عunto karis saaka waxaan karsanaynaa sabaayad iyo chicken waatana alaabtii laga sameynayay waa self raising waa plain flour iyo whole meat labada daqiiqood baa la isku darayaa xoogay milix iyo sonkor marka sonkortu waxay ka caawinaysaa ma garanaysaa hadhowta inay casaanta yacni shaaxidkeeda qayb ka qaadataa in sonkor yar lagu daro ina waa saliid kulul waxay ka dhigaysaa buskul oo kale yacni ma inaad buskul cunayso daqiiqdaa badan marka hala yaabin saliidda wata saas u fash leh waxay ka dhigaysaa sabaayad ama buskul la yidhaahdo marka wataa iyo biyihii oo laqaha qabtirayo dee waxaa loola kala baxayaa gacantii jugdhe daqiiqdu kama soo hadho la waxaad inay hesho biyo ku filan iyo inay hesho waqti ku filan hadda waxaan dhigtay dhulkii yacni meeshii kajada dusheedii baan saartay waxaan rabaa inaan labada gamcood la tago madiibadii way soo dhaaftay wataa hadda waxaan kusoo ceshaday madiibadii because siday ahayd baa loo soo cajiimayaa allahu mustacaan cabar baan dhiganaynaa intaan hawsha kala qabsanayno tuwaalkeena yar baan dusha ka saaranay hadda waxaan bilaabanaynaa chickenkii biyaa laga dharginayaa sida fiican loo dhaqo chickenku hawl badan yahay soo maaha waa kan xawaashidii lagu darayay intaasoo xawaash iyo intaad adigu haysato khasab maaha in inta lagu daro waa qofba intuu haysto mid ka mid ah haddaad haysato sirtu waa dhadhanka kuugu filan kawata taas daqiiqda waxaan ugu darayaa cornflowerta waa duruufo caafimaad dadka qaar baan cunin daqiiqaha kale laakiin taas qof kasta way aqbalaa waa waxa naga noo gaar markaa wataa ukuntii laakiin waa optional haddaad daqiiqda ku darsanaysa haddii kaleba laakiin xaafadeena waa lagu daraa marka allahu mustacaan chickenkii cabaar busna diyaar ahaanaya waan yar daboolanaynaa ilaa iyo nusu saacad siduu spicigu si fiican ugu dhex galo daqiiqdii sabaayadii ma xoogay soo kuskuusanay waqti badan maan dhigin oo sacbaa raafigu hayay inaan hore u sameeyay baan rabaa oo taas saliideedii yarayd iyo qorigii lagu kala bixinayay dabalka hadda way bilaabmaysaa kana waa maqligii ma aragtaa waa kulaylaaday waa diyaar chickenkiiba isna dabkan ku shubanaynaa saliiddii waxoogay u kululaatay dabalka wuxuu noqonayaa isaguna fried chicken masha allah full spicy quruxdiisa iyo udgoonkiisa waa badyaabi marka watan sabaayadii way jilicday saliideeni lagu kala bixinayay wataa waxaa lagu darayaa saliid sabaayadii saliid waa laisla ogay soo maaha hayay maanta waa saliidda adduunka laakiin waa saliid fiican waa coconut oil waan yar dhalaaliyey wataa coconut oil laakiin waxaa igu badan saliid caddeeda iyaduna waan isku daray marka wataa sabaayadda marka badan anigu ma rogo hal mar kaliya baan rogaa waxaa muhiim iyaduna inaad malgacad weyn haysato aanad ku gubanin marka wataa xabadii u horeysay saliidda hal mar baan ku daraa hoostanka ka daraa marka u horeysa khalaas ina waa xabadii labaad se usoo focday waa aragtaa yes marka biyo fiican laga waraabiyo chickenkiina waa kan
chickenka waa la dhex gashanayaa sabaayadda dadka raba dadka jecel baa isdhex gashada marka waa taas sabaayad maxaad ka taqaanaa sabaayad barnaamijkeena waxaa leedahay hidiya dhaqan marka sabaayaduna waxay ka mid tahay number 1 hidaha iyo dhaqanka aynu leenahay hidiya dhaqan baa sida wata hadda waxaan marayaa 6 xabo u dambeysay 12 xabadood bay noqotay 13 14 hadda laakiin waa dhowrkii xabadood u dambeeyay si bilowto dhammaad isku sibay u bislaanaysaa waa kaas sabaayad maxaad ka taqaanaayey maanta iyo mar kale iyo sabaayad quraac miyay noqotaa casho miyay noqotaa qada miyay noqotaa cuwaaf miyay noqotaa dhinacaad u kaxaysaba way noqotaa soo ma ogidin xitaa safarka waa loo qaataa sabaayadda waxaa loo qaataa marka la gelayo safar umulaha laga dhargiyaa waxaa la yidhi sababta looga dhargiya ma taqaanaa waa lagu haraadaa marka lagu haraadana umusha waxay cabaysaa biyo badan markay cabtana naaska caano badan buu yeelanayaa marka waa taa hablaha umulaha ha isku ogaadaan kaas salad baan u jarjarnay iyo chickenkii oo shiilan maxaa ka qurux badan dhinacna waa ka healthy dhinacna waa arrimo kale marka qofkii raba yogurt buu ku cunayaa dadka qaar yogurtkay ku jecel yihiin vanilla yogurt dadka rabaana saladkii iyo chicken bay dhex gashanayaan raab buu noqonayaa sabaayad la raab gareeyay ma aragteen weligii wataa ma axla dhalinyarada sidan jecel waa taa cunto wanaagsan ana idin soo dhadhaminaya maasha allah tabaarakallah adiguna markaaga tijaabi saladkaas waxaa ku jirta kaarooto iyo cabbage iyo kaarooto